aad iyo aad baan runtii aan ugu faraxsanahay caawa in odayaashii ama ambaasadoradii ama wakiiladii Somaliland aw walaalkeen Maxamuud Raage aw noo casuumo waxa kaloo la yiraahdaa runtii inta badan ambaasadoradu waxay xambaaraan waxyaalaha dalka gudihiisa ka socda marka reflectionkii baanu nahay inta badan ilaahay waxaan ka rajaynaynaa guusha inaad ku suntanaan doontaanoo generation to generation taariikhdu insha Allah idin qori doonto haddii alla yidhaa marka koowaad ilaahay baa hadda mahad iska leh mar labaadkana walaalkeen Maxamuud Raage oo runtii ahaa imankana gudoomiyaha mareey madbacadda qaranka Jamhuuriyadda Somaliland wasiir soo maray nagaasmihii guud ee cadaaladda arrimaha dibadda casho sharafta quruxda badan la caawa idinku sharafayna oo wada dhamaanteen marka hore jazaakallahu khayr jazaa dadka insaanka inoo khidmeeya qarankeenu khidmeeya la yiraahdo waa mahadsantihiin waxba soo qabateen waa inta ugu yareeda aanu qaban karro marka saaxiibkay waa siibay marka hore waa ku mahadsan yahay sharaf inoo tahay dhamaanteen de ruux cadaadiga asoo inoo fadhiya wasiirkii ugu daaweynaa iyo wasiirkii ugu yaraa asna inaga soo qayb galay ma sha Allah madashay qurxinayaan habla qaali ah runtii ayaguna libaaxiye ah kaalmo badan ka soo baxay noogahay ragii waxa jooga soo shaqeeyeen badan qarankan wax badan soo taray soo hagaajiyay haday saxaafadii noqoto haday injineerada noqoto waxaan leeyahay jazaakumullahu khayr jazaa waa soo khidmayseen aad iyo aad baan marka hore ugu mahad celinayaa maareeyaha ragga inta badan ujeedadooda dee waa gargaranaya laakiin se taytaladoodii iyo eryooyinkooda marka haddaan gafo raalli ahaanayaa si gaara waxaan aad iyo aad u salaamayaa wasiirka sidoo kale wasiir ku-xigeenka sidoo kale ambassadorska fadhiya madashan iyo basida kale qaaliga ah aad iyo aad baan idin salaamayaa kulley ambassadorsku baan kelmad oranayaayo kulley waxaad tihiin ambassadorskii wadankuna kulley waa wadanka curdinka ah inaad juhdi badan dadaal badan haysaan aad iyo aad baan uga dhareegsanahay insha Allah ilaahay idinku asture waxaan fafaaro fiican baa muuqato rajo badan oo qurux badan iyo isbedel kulley hawsha haysa waa hawl qaran waxa leeyahay idinku asturo wasiirka xogeenka wasaaradda waxbarashada barsaab xigeenka agaasimayaashii hore wariyaha caanka ah gudoomiyaha ciyaaraha ee Somaliland oo dhan dhammaan ambassadorada waa idinku soo dhaweynayaa dhammaantiin ambassadorada Somaliland xaqiiqdii safiiradu waa halbowlaha qaranka Somaliland weeye anigu agaasimaha arrimaha dibadda soo maray dad badan oo caalamka ku xiran wasaaradda waa sawirka koowaad ee Somaliland laga dheehdo weeyaan waa idin hambalyeynaya inkastoo aanay ahayn madbacadda qaranku dee aan laakiin maadaama DG Foreign Affairs soo maray cadaalad soo maray wasaaradda ka soo shaqeeyay dhibaatooyinka garanaya ina dadku way idinka xiga Naasir waan u yeeray waa DG-ga hore laba DG oo kala wacay ina naaqooda iyo hore u soo wada maray shaqay wada lahayn marka waxaan doonaynaa inaan DG-yada naftirkeega xitaa still we engage ma naan bixin we didn't resign it waxa way option kale iyo shaqadani way naga dhaxaysaa wixii contribution aan nooga baahtaan anagu waa idinsiinayna insha Allah taala sharaf weyn bay tahay in caawa kala soo qayb galo walaalkii Maxamuud Raage aan ugu mahadnaqayo xiriirinta iyo sooriyeynta iyo soo dhaweynta uu sameeyay wakiiladan iyo idmanayaashan qaranka ugu shaqeeya dalalka kala duwan anoo aaminsan runtii in qof waliba dalkan uu contribution gashan dalkana waxa lagu dhisay waa tabarucaad ilaa maanta waxaan ku wadnaa waa contribution qofku waxba ku soo diray waxba meel soo gaarsiiyay waxaan aaminsanayaa shaqo weyn oo qaranku leeyahay haysaan oo aaminsanayaa adduunka halka laga dagaalamaya gudaheena maaha dalalka aad joogtaan xidhiidhadoodii diblomaasiyadoodii sharaftii qarannimada Somaliland bulshooyinkeena deganaa baahiyoodii kala duwanaa xiriirintoodii gudihii hoosii la isugu xidhayay iyadoo aaminsanahay dhaqaalaha dalkeenu aad u kooban yahay oo dhammaantiina culays badan saaran haddana waxaad muujiseen dadaal iyo ka go'naansho ay ku jirto wadaniyada taasina waa tin doonayno inaynu ku guuleysano guulo fara badan oo ku gaarno adduunka maanta isbedelaya geostrategy-ga isbedelaya iyo geopolitics-ka socda aad arkaysaa
marxaladda aynu ka taaganay maanta halka geemka keliya atee geeska afrika markaad arkaysaan ka nabdoon waa somaliland maanta waxaa nooga bahalkaha inuu dhaafin haddii una idhaahdo aad baad mahadsantihiin waad hambalyaynayaa shir fiican baa idin dhacay ilaahay xilkaa iyo mas-uuliyadda haysana idinku guuleeyo aad baad mahadsantihiin